howlgalkani ka dhaca magaalada Jowhar ay ka qayb qaateen dhammaan ciidamada qalabka sida ayaa waxaa hogaaminayay General Axmed Xasan Maalin oo ah taliyaha hoggaanka howlaha booliska Soomaaliyeed. howlgalku markuu soo idlaaday ayaa warbaahinta waxaa ugu waramay General Axmed Xasan Maalin wuxuuna si aad u faahfaahiyay ujeedka howlgalka ay sameeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. waxa weeye howlgalkan xalay wuxuu ahaa amniga magaalada Jowhar in lagu saxo lagu xaqiijiyo magaalada amnigeeda in lagu kontrolo la ogaado ay ahaa wax dhibaal kale ma ahayn. saakay waxaan noo suura gashay inaan soo qabanno ilaa iyo dad badan waxayna waa dadkii waa kala saarnay dadkii la garanayo oo magaalada taqaano dadku yaqaano waa fasaxnay waa iska sii daynay dadkii u shaqeynaya hay'adaha dowladda oo la garanayay ayagana waa fasaxno waa sii daynay 20 qof camalaan noo soo hartay oo weli aan baaristeeda hayno saldhigay ku xiran yihiin waxaana baari doona haddii ilaahay yiraahdo qaybta iyo saldhigga ayaa baari doona waxayhiina ayaa muxuu ahay noo soo saari doona insha Allah. taliyaha ayaa sheegay howlgalkani in aysan ka qayb qaadan ciidamada AMISOM wuxuuna sheegay in aysan qorshaha ugu jirin in ay ka qayb qaataan. ma kuma jirin qorshaha AMISOM howlgalka markii horena ma aanan ku xisaabtamin kuma darsan nalama joogin in Soomaaliyeed bay ahayd ciidamada amniga bay ahayd ma ahayn ciidan kale kuma jiro. waxa uu soo qabteen ma jiraan taliya waxaan qabanay qore aaka oo wata nin sheegtay inuu yahay xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka tirsan yahay guutada lixaad Baladogle ninkaas waa soo qabanay maxqorkiisii waa soo qaadnay waxaan ku wareejinay taliyaha ururka 19aad guutada joogta Jowhar taliyaha ururka 19aad ku wareejinay qorigii iyo askarigii. ugu dambeyntii taliyaha ayaa sheegay in uu sii socon doono howlgalkani ilaa ay ka xaqiijiyaan amniga magaalada Jowhar. haddii ilaahay yiraahdo howlgalkan waa socon doonaa ilaa magaalada dadka joogta tirakob lagu sameeyo guryaha tirakob lagu sameeyo wax walba la ogaado howlgalku waa socon doonaa haddii ilaahay yiraahdo kuma koobnaan doono maanta kaliya. generaalka ayaa ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo soo gaartay magaalada Jowhar markii uu furmay shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Shabeellaha Dhexe Jowhar.